haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad i aragto magacaygu waa Zio waxaan channelka kusoo gudbiyaa qisooyin xaqiiqo ah si diiran ayaan waxaan kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga walaashin Zio idin leh ani waa caafimaad qaba dhamaantiin waxaan idin rajeynayaa in aad ii caafimaad qabtaan soo dhawaada waa mar kale iyo video cusub videogan ayaan maanta waxaan idin kugu soo gudbinayaa فيروس كاس oo lagu arkay dalka Shiinaha markii ugu horeysay aan aragno cudurka corona wax uu ka soo bilaabtay Shiinaha isla Shiinaha ayaa hadana cudurkan lagu arkay cudurkan oo ah cudur isbedel jismiga ku imaado ama jirka ku imaado qof bini aadan ayaa wuxuu u ekaanaya waxash ama qof laga baqdo ayuu u ekaanaya kadib markuu cijaha ka soo baxaan cijo dhaadheer oo yeesho ama jirkiisa meel kamid ah ay dilaac sameeyaan dadkaas markii ugu horeysay oo la arkay ayaa waxa lagu arkay suuq Tariina lama rumeysan oo waxa la isdhahay dad barangi sameynaa way dunida ayaamahan dambe waxa ku soo farabatay sameynta barangiga balse markii ay u adkeysa waayeen qaar kamid ah dumarka sidooda waa dad aad u cabsado hadii wax yar arkaan waa ku carro ama qalqalo ama xoog u cabsado cudurkaas markii la arkay oo hadana dadkii aad ka ugu baqdeen ee noqdeen dad dumar ah ayuu Shiinaha marka dambeeso xoog loogu arkayay dalka soo labay ayuu waxa uu noqday dalka Mareykanka xaafad kamid ah ayaa waxa lagu arkay isla tabtii dad u yaalo hadana dad in ay camera shitaan dhahayaan ciyaar maahan arintan serious waaye arintan sida u jeedaan cudurkan ayaa waxa la sheegay in sidii hore uu ka yimid tijaabo wax ay ayaga sameeyeen taasi oo habada raacay badana dadka kuma dhicin hadda laakiinse wuxuu ugaarsanayaa dadka daciifka ama manacadooda ay yar tahay isla sida u jeedaan wiilkan uu ku jira isbitaalkii ayaa waxa la leeyahay ninkii waashibo xanuunkii ayaa ku soo socday Dios mío. Ey, pero no le pueden poner un medicamento. dalkii labaad ee lagu arkay ee wuxuu uu noqday Mareykanka xaafad kamida isla wadankii saddexaad lagu arkay ee wuxuu noqonayaa Mombasa waa la soo galay Soomahan Afrika ayaa waxa lagu arkay isla xanuunkan ayadoo la leeyahay idaacadaha dhan laga siiday arintan xaqiiqo waa yaa la yareysan dadka badankooda ayaan ku baraarugsaneen inkastoo idaacadaha laga soo deeyo la yiri war arintan xaqiiqo waaye aniga siyaab waa ka cabsada dadkaas because qof bini aadan oo lagu leeyahay wuu isbedel cijo dhaadheer oo yeeshay jirkiisa daldalaacay kadibna ilaa iyo hadda horta kulay lama soo sheegin dad is cunay laakiin hadeeb arintii ee sidaa noqotay alaakhir way is cunayaan qofkan wuxuu ka tagay bini aadanimadii yacni qofnimadiisu uu ka tagay wuxuu noqday qof aan xasuus lahayn ama yacni mir lahayn jidka xiisu iska soconaa waa lagu ciyaaraa sida u jeedinba waa lagu ciyaaraa waa xaraga iskaaga xiranaa waa lagu soconaa laakiin hadduu baahdo qof cijo dhaadheer hadduu baahdo maxaa sugay wax yar markaa aan dib u laabto aniga Zii ahaan aan taariikh idin kaga sheekay waagaan yaray dadka ilkaha dhaadheer waa ka cabsi jiray waayo ayaana magaalada waxa soo gashibo juudaan dad cunay maaday dad xaafadeena ka bilaabatay wiil yar oo ila dhashay maalin wuxuu u galay dad oo diriska weligiisna ma ahayn ciyaarka baxbaxo waa la waayay guri nugu dhagan bisu iskaaga jiraya ilmo ficiisu iskala ciyaara markaas waxa noo soo dhajiibo maanta juudaana imaad xaafada waa la qaatay laa ilaaha illa anta ya rabbi yaa istaagahe kontaroolada soo xirxira meel kasta qeeldaan dira waxa uu anagoo sidii oo yacni heega ugu jirno anaga dhama aragtay fiig nugu jiro yacni wiilkiiba cabsi aad 7 jiro noogu saqiiray intuu 7 sano ka yaraa waa arintaas
markay dhacday kadib ani aad u cabsi jiray horta juudaan ba hadaan maqlo juudaan macnaheeda yani qof bini aadan dad cun bisinkiyo dadka saa ugu taqaanaa marka qofkaan qof labisan waaye ma ka aqoonsan karti Soomahan markaasaa waxaa dhici jirta dadka qooriyo habeenkii ee dadka ilkaha dhaadheerbo leema tusi karin aad ugu cabsi jiray taa waxa soo raacday wadanka mar anoo ka soo baxay ayaa waxaan arkay hadane Coldon waa taqaaniin dhamaantiina Cabdimaalik oo nin soo bandhigay ninkaas oo leeyahay cunug ayuu cuniya lagu qabtay anoo sidaan weeyaan weyn anoo wallahi waa siixay been sheegma habeenkii hadaba qof baa aragtay oo isoo dul istaago waxaas dhijir dalqadkii waa laa ilaaha illa inaan boodo ninkaas muddo ayuu ugu sawirnaayay qof walba aan arko funaanadii qaybkiisa ay ugu soo dhici jiray aad u necbaysi jir dadka qalka waa ka cabsadaa waan necbahay wax kaliyo aan ka cabsado dadkaas waa hadda dii lagu leeyahay ka waran qof ayaa isbedela cijid dheer yeelanayo oo iga geysantii dadkaas isku aaminay oo hadan jeclaystay in ay ku sii ciyaaraan ama film ka duubtaan ee ka dhigtaan goob ma arkin oo madadaal loo galo dadkaas aad iga geysan yihiin intaan ayaan jeclaystay in aan nila wadaago haddii aad hore ila joogteen waa ku mahadsantihiin joogitaankiina waa ii sharaf haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelku waa channelkaaga subscribe dheh fargan baleelka si aan u gaarno guusheena rabadaanka dhexdiisa walaashin ziyo idin la dunida waa wax yar is xisaabi intaan wax xisaabin ka hor bye bye